بسم الله الرحمن الرحيم حاجة كان waxay ku haysanaa geometry su'aal geometriga waxaana halka rabaa inay soo saarno qiimaha k uu yeelanayo kayna waxay noogu sawiran tahay halkaas haddaba waxaynu haysanaa sawirkan saa uga jeedaan saddex xagal baynu haysanaa saddex xagalkan marka waxaynu halkan sayrakan labada alif iyo labada alif wax laga wada way isleeyihiin waana saddex xagal isoscelisku labadiisa dhinac iyo labadiisan angal way isla ekaadaan oo propertieska isoscelisku ka mid yahay ee astaamaha uu leeyahay inagoo isticmaalaynaa straight angleska oo ah xaglaha ku samaysma xariiq toosan oo isku buuxiya 180 degree isku buuxiya inagoo ka faa'iideysanayna inaan soo saarano saddexda xagal 1 2 iyo 3 saddexda angal inaynu soo saarano waxaan isticmaalayaa marka conceptiga ah xaglaha straight line ku inay isku buuxiyaan 180 degree haddaba xagashan koowaad iyo soo qaado ah 115 maadaama ay xariiq toosan ay ku wada taalo waxay isku buuxinayaan 180 degree bay isku buuxinayaan haddaba ii soo qaad angalkan marka waxay igu bixisaa x igu bixi angalkaas kadibna ii raadi marka anoo isticmaalaya propertieski astaamihii ay lahaayeen straight anglesku inay isku buuxinayeen 180 degree isku buuxinayeen waa kan marka anigoo haysta 115 baan waxaan u geeyay x oo ah qiimahan ay iga maqan inay isku buuxiyaan 180 labadooda isku darkoodu inay isku buuxinayaan 180 marka dhinac walba waxay iga jirtaa 115 dhinacan kalena waxay iga jirtaa 115 kan iyo 115 kale isla jar maadaama ay plus iyo minus ay kala calaamad duwan yihiin 180 kan ii soo qaad x baa marka waxay ila mid tahay 180 oo aan ka taray 115 labadan marka haddaan kala jaro waxay soo baxayaan 65 marka xagashatan waxay ii noqonaysaa 65 extra marka xagashan waxay noqotay 65 degree waayahay haddaba inagoo haddana isticmaalayna propertieskii ahaa isosceles triangle maadaama ay isla ekaayeen labadan dhinac iyo labadan angal ay isla ekaayeen tanina waxay noqonaysaa 65 bay noqonaysaa angalkanina 65 buu noqonayaa haddaba haddana waxaan sii wadaynaa angalkanina haddana soo saaranaynaa inoo soo harsan triangle-ka kale halkan waxaan haystaa 65 xariiq toosanna way ku wada yaalaan marka xariiqdii toosan inagoo haddana isticmaalayna oo ah 180 inay isku buuxin jireen baynu waxay ka faa'iideysanaynaa isku daraynaa iyagana laftirkooda 65 bay waxaan ku daraynaa xagashatan oo aanu qaadanayo iyana x aanu qaadanayo haddaba ii soo qaadayana iyana waa tan marka 65 oo ah xagashatan baan waxaan u geeyaa xaqii x maadaama ay isku buuxiyaan wadartoodu isku buuxinayaan 180 ay isku buuxinayaan haddaba dhinac walba 65 iga jar sideen samayn jirna labadan 65 isla jar maadaama ay calaamaduhu kala duwan yihiin way kala go'ayaan halkan x baa igu soo haraysa x marka 180 iyo 65 taana kala jar labadaa marka aan kala jaro waxay soo baxayaan 65 waxay soo baxaysaa 115 marka xagashaas waxay ii leegtaa 115 haddaba saddex xagalka xaglihiisa gudaha oo dhan saddexdiisa xaglood waxay isku buuxiyaan iyasana 180 bay iyana isku buuxiyaan haddaba inagoo haddana taa isticmaalayna waxaan rabnaa inaan soo saarno xagasha ah 2kda inaan soo saarano waxaynu isticmaalaynaa iyana waxaynu ka dhaxaysiinaynaa wadartooda 43dan iyo 115kan iyo 2kdan waan isu geeyey baa waxay isku buuxinayaan iyadana 180 ii soo qaad marka iyana waa tan marka waxaan isticmaalayaa wadartoodu inay isku buuxiyaan 180 isku buuxiyaan haddaba waxaan samaynayaa 43 diiwaaniga soo qaatay waxaad igu geysaa 115 oo ah xagashatan oo halka iigu jirta iyo 2kda tan igu gey inay isku buuxiyaan 180 bay isku buuxiyaan haddaba 43dan iyo 115kan haddii aan isu geeyo waxay isku buuxinayaan waxay isku noqonayaan 158 bay isku noqonayaan 158dan iyo 180kan ii kala jar waxay ii soo baxaysaa 22 marka dhinac walba laba u qaybi 2kdan iyo 2kdan dhinac walba hataa laba u qaybiyo waa 11 marka su'aasheena nala weydiiyey waxa nala siiyey a iyo b iyo c iyo d baa nala siiyey choice baa nala siiyey marka su'aasha waxay noqonaysaa b oo ah 11